السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم maanta meel ba joogtaan maanta waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo measuring volume sidoo kale waxaan ku jirnay casharka measurement ku jirnay waxaan si gaar ah uga hadlaynaa maanta measuring volume marka liquidka laga hadlayo waxa lagu badan lagu sheegaa liter can be measuring cylinder ba shayga lagu si badan liquid lagu shuba liquid kana marka lagu shubo liquid ka scale ka ku qodul qoran shaygaas wuxuu siinaya volume shaygaas marka when the liquid is poured into the cylinder the level on the scale gives the volume scale ka ayaa wuxuu siinaya volume the most of measurements cylinder have scales marked milliliter or centimeter cubic marka measurement ka badanaa scale kaas waxay leeyihiin milliliter or centimeter cubic ba qodul qoran oo macnaheedu ay leeyihiin sidaa weed daladan oo kale waa qaabka dhulubada oo kale waa cylinder kadib scale kaas ku dul qoran centimeter cubic oo iska dul qoran kadib hadii biyaha ku jira ka scale ka yihiin kaas ka akhriisa meesha biyaha joogan inta centimeter cubic ay yihiin kadib liter oo milliliter seen hore soo barnaa isku bedeli kartaa inta shaygaas inta milliliter ku jirta ama inta centimeter ku jirta centimeter cubic milliliter ku jirta markaas shayga haduu leeyahay regular haduu yahay haday leeyihiin simple shape or shape volume kiisa la calculate garan karo oo formula lagu isticmaali karo waa kadib shayga si fudud ba loo soo saari karaa volume ku jira marka halkaas the regular of solid if an object has a simple shape its volume can be calculated for example regular kala ka soo qaad rectangular waa shayga haduu leeyahay regular shape si fudud ba loo saari karaa oo dhinaciisa la isku dhufanaya kadibna volume ka shayga uu leeyahay the volume of the rectangle block so its length mal width mal height saddex dhinac isku dhufan nusoo hore soo barnay shayada badan oo kale saddex dhinac isku dhufta kadibna volume kada la helayo haduu laakiin dhulubay ahna the volume kada waxa lagu helayaa pi oo ah 2 divided by 7 oo lagu dhigtay radius oo loo jaro isku dhuftay oo lagu dhuftay height ka shaygaas marka saddexda waxa muhiim ah inaad haysato radius ka hadaa diameter haysatina diameter ku waa laba radius isku diray waa radius halkaas oo lagu diray radius ka waa laba radius hadii lagu siiyo waxa la yiraahdo diameter kaasna labada qiimaha sa radius ku heshid height kana waa lagu siinay hadina waad ka shaqeyn kartaa marka taas waa cylinder ka haduu shaygu yahay cylinder haysatid marka shaygu haduu yahay shape kaas sida fudud loo saari karaa shayada badanaa oo shape-kooda karamay laakiin hadii shaygu yahay irregular oo shape-kiisa aan qeexi karin si loo saari karaa taas waxa lagu saari karaa shaygan ka soo qaad cylinder kan waxaan haystaa scale kaas ayuu dul qoran waa cylinder ka caadiga ah biyahana waxa jooga ka soo qaad 13 centimeter cubic kadib dhagaxan haystaa dhagaxana volume ka ma garan karo mana cabir karo irregular shape way kadib waxaan ku dhexridayaa cylinder kan kadib marka cylinder kan uu dhextago biyihii scale koodi way kordhayaan oo kor bay u kacayaan inta kor u kacday oo ku darsantay intii hore originalka ahayd ku darsantay waa volume ka dhagaxas leeyahay kadib waxaan kala jarayaa shayga hadda 30 taagan yahay 30 centimeter cubic oo volume ka cusub volume ka cusub waxa volume ka hore waa 13 centimeter cubic waa volume ka shaygaas marka saas lagu cabiraa badanaa marka laga cabirayo irregular shapes ama shay haduu tani bixismi lahayd oo tan biyo ka daadan lahayn oo shay kala oo tan aan u dhigi lahayn biyaha displacement ka oo ta ka soo baxa ayaa waxa noqonaya volume ka dhagaxaas